magacaygu waa Zahra Cabdiwahaab oo joogta xarunta dhimirka magaalada Qabri Dahar ku taala arrimaha ugu cajiibsanaana waxa kamid ah dadku inay ku tukanin oo inay gelin dadka qaar oo waliba dadkan ay leeyihiin waxa iska dhigayaan dadkan dad iyagu ay ka fiiceen ama ay ka sareeyaan inay yihiin labada qof ee muslimku una bilaadanku una waxba ma kala dheera diintu bay ku kala fiican yihiin xilli waxa jirtay masaajidkan markii aan aragnay arrintan wadnay gabdhaha ee barnaamijkan waday dhimirka xilli ay yimaadeen dadkaas aad bay u dayacnaayeen gacan lacagad bay ka geysteen la tiraka laba jeer bay gacan lacagad ka geysteen masaajidkana waa dayactireen dadkana way guubaabiyeen way dhiirigeliyeen war dadkana waa isku mid baatiin tala noocaas aan ka geysanay marka cid walba wax garanayso ra'yi waxay ahayd arrintaasi markii la yiri masaajidkan dadka qaar baa ku tukada dad annaka naga hooseeya ayaa ku tukada markii la yiri arrintii loogu cajiibanayd arrintaas ay ahayd runtii waxa weeye waxaan aad u gaarsiiyay arrinta oo aad uga la dagaalamay bulshada dadka bulshada ay dariska leeyihiin marka dadkaas waxaan isku daynay inaan fahansiino dariskooda waxay yihiin hatta meeshan dad baa ku jira hadda xarunta dhimirka dad iyaga meesha aan ka keenay baa ku jira oo beesha gabooyaa ka tirsan iyagu kumayna fikiraynin dadkan meeshan waa lagu xareyn doonaa lacag la'aan baa lagu siin doonaa adeega caafimaadka laakiin annaga u sheegnay oo doonanay oo niri dadkaad ula simantihiin kana dadka aad guryaha ku haysaan marka dadku waxay aaminsan yihiin inayna dadka isla xuquuqba ayna ahayn sida iyaga laga dhaadhicay maskaxdooda lagu abuuray baa sidaas maskaxdooda waxaa lagu abuuray inayna dadka la xuquuqna ahayn lana sineen baa lagu abuuray xagga diintan way gasho masaajidka hadda waa la dayactiraa dad baa aad u dayactiraa laakiin masaajidkan markii anagu aanu nimid aad buu u dayacnaa marka tukashadiina iyadana laguma tukado oo culimada masaajidkaas ee gabooyaha joogta laftirkooda wareysiga weydiinay laguma tukadaan dadkaas kuma tukadaan balan anaga waa masaajid gabooyoon waa masaajid gabooyoon baa marka waxay aaminsan yihiin dadku inayna salaad ka ansaxaynin wallahi waxay aaminsan karaan ma isla weyni iyo aqoon darri baan u malaynayaa inay tahay iyo jahligii lagu weynaaday iyo sheeko waa hore laga yimid marka dadkan hadaan hadda la qabanin oo dadkan inay dadka la mid yihiin la tusin oo xuquuqdooda aan la tusin oo bilaadanimada dadka labada qof inay siman yihiin aan la tusin oo laga saarin wixii waa hore la galiyay khatar badan baa ka dambaysa